nin degan waddankan Mareykanka ayaa siduu sariirtiisa u jiifay oo uu hurdo ugu jiray mar qura la waayay dhulka kula go'baan maqli jiray kadib markii uu dhulku la go'ay oo uu laqay dhulkii waa sheeko naxdin leh oo ilaa iyo hadda hadal hayso warbaahinta dalkan Mareykanka dhacdadan oo shalay ka dhacday gobolka Florida ee dalkan Mareykanka waxa ay noo sharaxaya Harun Macruuf oo stuudiyaha la fadhiya. Harun, waa masiibo weeye horta waxay ka dhacday meel u dhow tuulo yar oo u dhow magaalada la yiraahdo Tampa oo ku taala gobolka Florida. Marka waxay ahayd habeenkii Khamiistii qoys dad ehel isku ah ayaa isku yimid way casheeyeen cashada ka bacdi way caweysimeen way sheekaysteen iyagoo sheekaysanaya ayaa ka bacdi waxay kala aadeen qolalkoodii ninkii reerka iyo 5 qofood dad waaweyn ah iyo ilmo yaroo 2 jir ayaa guriga ku jiray 11 habeenimo markay ahayd ayuunbaa hal mar waxay maqleen shanqadh aad u weyn way soo carareen qolkii waxay arkeen ninkii guriga lahaa waxay arkeen sariirtii iyo isagii oo maqanba oo dhulku uu la go'ay ninkii oo cabaadaya oo dhawaaqaya oo dhahaya layga soo gaaro war hal la caawiyo ayaa ugu dambeysay marka iyagu codkiisa uu sii dhamaanayo waxay isku dayeen marka nin walaalkii la hadlay warbaahinta wuxuu yiri waxaan isku dayay inaan caawiyo oo gacantayda u tuuro laakiin gurigani wuxuu ka kor dhisnaa meeshan duntay markii uu isagu dhulku la go'ay ee ninkii uu dhulku jiitay alaabooyin kalena way ku kordumeen marka way u suurtageli weyday inuu badbaadiyo way isdaba galeen ninkii saasuu godkii ku galay ilaa hadda waxaa loo malaynayaa raqdiisa iyo ruuxiisa midna lama maqlin qalab baa la geliyay meeshii si loo dhagaysto inuu nool yahay iyo in kale ilaa hadda lama hayo waxaa loo badinayaa inuu dhintay laakiin waxyaabo kalena uu jiitay dhulku markii uu degay. waa sheeko la yaab leh. Harun, waxaad ka warantaa waxaa laga yaabaa dhegaystayaal fara badan iyo anigaba waxaan isweydiinaynaa gurigan wuu wada dhisnaa waa la wada deganaa ninkan keligiis iyo sariirtiisa maxaa gooyey salaamaad mikul afaad dhulku kula goobaan maqli jiray maxaa dhulka la gooyey keligiis waxa keligiis horta ma aha oo isaga iyo sariirtii iyo intii uu fadhiyo dhan bay la go'day waa inta isaga ku aadanay joodarigii uu ku hurday uu la go'ay telefishinkii uu fiirsanayay wuu la go'ay dhulkii isna wuu la maqan yahay xadhkihii unbaa loo jeedaa oo godkii kasii laalaada oo dhulku la go'ay laakiin guriga dhan hadda markay tageen booliiska iyo kuwa dabdamiska iyo waxay yiraahdeen guriga dhammaantiis wuu jilicsan yahay aad iyo aad buu jilicsan yahay marka dadkii oo dhan way ka daadgureeyeen deriskii bay xataa ka daadgureeyeen waxay ka baqayaan gurigan gebigiisaba inuu marka dambe wada dumo oo dhulku uu liqo oo la waayo isagana ku darsamo oo la waayo marka isaga ma ahana yaa kaloo reerka ka mid ah ama ma jiraa khasaare kale oo halkaasi ka dhacay in isagii iyo sariirtiisa alaabtiisa la isla waayo maaha markii jugta uu dhacday ee ninkii dhulku liqay dadkii kale way ka carareen waa laga daadgureeyey ilaahay wuu badbaadiyey nin walaalkiis ahaa oo isku dayay inuu badbaadiyo aniga laftigeyga wuxuu yidhi halis baan geli lahaa haddii aan ku sii adkaysan lahaa inaan walaalkii godka ka dabagalo oon soo badbaadiyo inaan labadayaduba isla wada dhimanno ayaan ka baqday buu yidhi marka wuxuu is yiri maaragtay walaalkaa waa dhintay aduu isbadbaadi marka deriskii oo dhan hadda way ka daadgureeyeen nin ka mid a dadkan saynis yahanada ee yaqaana cilmiga saadaasha dhulka wuxuu yidhi 40 sano oo deegaankaas ka samaynayay baaritaan 2 qof 2 jeero hore unbay dhacday buu yidhi sidaan oo kale oo dad uu dhulku liqay marka ma wax hadda arrintani u gaaraba Florida kale mise waa wax hore loo maqlay annaga Soomaalihan waxaan maqli jirnay dhulka kula go'an maqli jirnay laakiin hadda iyadoo toosan u aragnay Soomaaliya laftigeeda meelo way ka jirtay tan intaan u soo laaban meelaha dhulka jilicda san leh ee bustaanka ah ama dixda ah ama meelaha biyaha fadhigooda ku badan yahay hadii jeer marmar ayaa dhulku ayuu go'aa laakiin qof dhan ma liqi karin iyo sariirtiisii iyo wixii oo dhan meelaha qaarkood xoolaha wuu liqaa oo maaragtay dadka reer baadiyaha ayaa aad u yaqaana xoolaha wuu liqaa dhulka la go'aa maxaan ku idhahdaa tan markaan u soo laabano marka dadku waxay leeyihiin maxaa ugu wacan in gurigan dhisan ilan guriga waa aragtay marka la dhisayo dhulka hoos loo qodaa waa la baaraa waa la tijaabiyaa shub baa la geliyaa maxaa gurigan dhulka la gooyay marka waxay leeyihiin 2 arrimood midood baa ugu wacan waa midda koobaade horta waxay go'aamiyeen arrintan inaysan ahayn wax bilaadan sameeyay oo tahay wax dabiici oo si dabiici u dhacay waxay dhaheen marka kow waxa suurtagala carradu inay dhamaatay
oo wadanka waad aragtay kiimikooyin iyo ayaa meelaha qaarkood dhulka lagu aasaa. marka kiimikooyinka waxaa laga qaarkood carada way daxal bay geliyaan, caradu way dhammaataa. caradu markay dhammaato waxay noqonaysaa xorshash qashinka oo kale, marka wuu go-ayaa dhulkii, isma celin karto. taasi waa midda labaad. waxay leeyihin waxaa suurtagala in meelo u dhow guriga dhismayaal hadda ka hor uu ka socday, biyo lagu shubay, qoyaan inuu muddo hore soo gaadhay dhulkan. marka dhulka uu qoyay sidaas darteed uu jilicsanaaday. marka gurigii iyo hareerihiisii oo dhan baa hadda ayaa maaragtay aada u jilicsan. waxaa layidhi good aada u weyn weeye, 100 tallaabo ayaa afkiisu uu leegyahay inta furantay. hoos marka la fiiriyo waxaa layidhi ilaa 50 food hoos wuu gaaraya, afkiisuna ilaa 100 food wuu gaaraya. waa 100 cagood oo saas laysku daba dhigay afkiisa, gudahana ilaa 50 cagood. waa la yaab. marka ilaa iyo hadda ninkii meel ma lagu sheegaa? ilaa hadda ninkii meel laguma sheego. booliiska iyo dadka caafimaadku waxay aaminsan yihiin inuu hadda ninkaasi dhintay, uusan noolayn. ma godka ayuu ku jiraa oo weli ku aasan yahay oo guriga iyo waxyaabihii kale ee dumay ayaa korka ka saaran, mise godkan la dumay laftigiisa ayaa meel kale kusii daloola oo bulaacado kale ayuu raaciyey qofkii iyo wixii uu la dumay, midna lama oga. marka taas weli lama xaqiijin. marka waad aragtay wadankanna haddii qof dhinto dadka u gurmanaya iyaga laftigooda aad bay isku ilaaliyaan oo muddo ayay ku qaadataa in qofkii loo gurmado, sida Soomaaliya oo kale oo 10 qof hal meer isku tuurayaan. waxaa laga fikirayaa si qofkii loo soo badbaadiyo in ayagina ay badbaadaan, inay iyaguna badbaadaan, meeshina si taxadar leh lagu waajaho. saasay rabaan.